قصة ريما مقعي ريما انت aan lay dhalan ama aysan isguursan hooyada iyo aabahay waxa uu ahaa aabahay midka ugu yar walaalihiis dhamaan waxay wada qabeen xaasas waxay ku wada noolaayeen guri ay familka wada leeyihiin oo aad u weyn qof waliba waxa uu deganaa qol jiko iyo musqushiisa balse waxa ka wada dhaxeeyay xooshka ama daarada guriga familka aabahay waxay dhaqan ahaan u lahaayeen in uu san guursanin wiilka gabar qabiil kale ka ah balse uu la yimaado gabar qabiilkooda ah aabahay laakiin taas waa uu ka duwanaa wuxuu la yimid gabar qabiil kaleeta ah balse walaalihiis iyo awoowahay dhamaan waa ay ka soo wada horjeesteen aabahayna waa uu ku madax adeegay wuuna masaafaystay aniga hooyaday maysan lahayn aabbo oo waxay ahayd agoon dhaqaalana maysan haysan aabahay waa uu mehersaday laakiin meherna muusan siinin aroosna muusan u dhigin gurina haba sheegin dahabna looma gadin wuxuu u soo kaxeeyay gurigii shalay laga nacbaa wuxuu u keenay aabihiis iyo walaalihiis dhamaan waa ay ka soo wada horjeesteen laakiin waxaa soo dhaweysay gacmo furan ku soo dhaweysay ayeeyaday aabahay dhashay waxay siisay qol jiko iyo musqul halkaas waxaa ka bilowday khilaaf ama dagaal u dhaxeeya eedooyinkii adeeraday ee qabeen iyo aniga hooyaday waxay ahayd qof aad u degan caqli badan waxay isku dayi jirtay in ay dadkan waaniso ay wacyigelisay wax u sheegto ayagana aad ayay u dhibsan jireen markay tiraahdo way nacbaysan jireen muddo markii ay la nooleed hal sano ah waxaa soo galay ramadaan dadka guriga wax soomaya malahan wax salaadayaan malahan waxay isku dayday in ay waaniso ilaahay mahadii mar walba waxaa qaadan jiray waanadeeda shakhsi ka tirsan dadka guriga ku nool ilaa ma dadka dhan ay ka wada noqdaan dad sooma oo salaada oo waajibaadka Allah wada guta waxayna ku timid Allah ka sokow waanadii iyo akhlaaqda wanaagsaneed ee hooyaday waxay yeelatay uur waxay isku xijisay 3 gabdhood familka dhamaan waa ay ku wada kaceen waxay dhaheen naagtan gabar ma ahana wax kale ma dhalin taqaano balse waxay dhashay wiil haddana waxay dhashay gabar haddana waxay dhashay wiil kale wiilkii weynaa waa u caafimaad qabay laakiin wiilkii labaad ayaa wuxuu ka noqday bugtaan ama mid xanuunsan waxay la gashay isbitaal muddo 3 sano ayay isbitaalkii kula jirtay aabahay hooyaday wuxuu ku yiraahday iska daa wax uur ah qaadan daawo isticmaal oo orod isbitaal tag balse hooyaday taas waa ay ka diiday waxay tiraahday awlaadu waa nicmo oo Ilaahay ku siiyay lagamana yaabo in aan daawo isticmaalo muddo kadib hooyaday waxay ku soo laabatay xaafadii waxay ugu soo tagtay isbitaalka cunugii iyo iyada hooyadeed waa aniga ayeeyaday balse waxay u timid aabahay oo meel fadhiyo waxayna ku tiraahday uur ayaan ku leeyahay aabahay aad ayuu u xanaaqay gurigii alaabta taala ayuu inta jijibiyo ku yiraahday ma ku sheegin miya ma ku dhihin miya uur ha qaadin aniga ma raba awlaad mana u haaya waxaan siiyo yaa daryeelay midka caloosha ku sido yaa daryeelay midka isbitaalka ku jiro waa qalad inaad xilligan uur qaado hooyaday waxay ku jawaabtay wax walba waa qadar Allah cunug walban irsaaqadiisa la iimaanaya lagamana yaabo in ay wax dhac balse muddo kadib familkii guriga oo ku wada noolaa dhamaan waxa lagu heshiiyay in guriga la iibiyo nin walba dantiisa uu raacdo oo la kala guuro aabahay wuxuu degay tuulo kale ilmihii ayuu ka xeystay halkaas ayuu ku noolaa waxa shiraaka noqday ama ay shaqo wadaag noqdeen asiga iyo yar saaxiibkiisa halkaas asigoo ka shaqaysanaya ayaa hooyaday waxay dhashay aniga balse hooyaday sida ay isbitaalka ugu jirtaa muddo 3 sano ah walaalkeen aad ayuu u xanuunsan yahay aniga markii la dhalay ma helin hooyo oo waayo hooyada isbitaal ay ku jirtaa imana hayn karto imana wadan karto waxa ay qabatay daryeel xumo oo wax ay xanaaneynay malahan walaashay iga weyn oo 12 jir ah ayaa la iga tagay iyadana waa ciyaal aabahayna aad ayuu ii nacbaa waayo markaan dhalanayay uma faraxsan oo wuxuu sugay wiil haddana gabar ayaan ku sii noqday asigoo aad gabdhaha u nacab markii anigii aan daryeel xumo ay qabatay oo masaasad wasaq la ii siinayo oo gobol aanan haysan dhaxanta ay dilayso qabow ugu dhacay wax busta isaaray aysan lahayn oo meel walba iska jiifo ayaa waxa ugu dhacay infection waxa leela cararay isbitaalka hooyada ay ku jirtay halkaas ayaa anigoo fuuq baxayo oo shubankii iyo matagii isku daray ayaa la iigu dabiibay markii muddo meesha aan ku jiray bil ah ayaa aabahay maalin walba wuxuu ku duceysan jiray Ilaahay oo riima iga qaad oo Cabdalla caafimaad ii sii balse Ilaahay riidiisa uma uusan rumaynin oo anigii oo caafimaad qaba ayaa isbitaalka la iga soo saaray balse Cabdalla isbuuc kadib waa uu geeriyooday waxa la ii geeyay ayeeyaday hooyaday dhashay abtigay ayaa aad u jeclaa
halkaas ayaana 3 sano farxad ku soo qaatay anigii oo halkaas ku nool oo cideeda aan jeclayn in aan la noolaado laakiin booqasho ugu imaanayo ayaa maalin waxaan imaanay guriga hooyaday anagoo wada joogno ayaa ayeeyaday iyo hooyaday ay wada seexdeen waxaan busto saaray ayeeyaday waxaan shib ka dhahay hooyaday markay soo kacday waa ay aragtay aad ay u carootay waxayna tiraahday hooyo midaan kuma raacayso akhlaaqdeedana waa iga xumaatay hooyanimo iima taqaano ee way ka haraysaa sida ay hooyaday ugu reebtay hooyaday waxay dhashay intii aan maqnaa gabar la yiraahdo saxar aabahay aad ayuu u jeclaa waayo markii iyada ay dhalatay waxay noqotay gabar falxad ah wuxuu u helay dhaqaale aad u fara badan balse muu ahayn mid dhaqaalaha ugu farxiyo qoyskiisa wuxuu ahaa baqiil zaa'id ah wuxuu dhaqaaleyn jiray dadka xaafadda la degan dariska asxaabta ninkiiba maanta ama ha garto ama yuusan garanin wax weydiista waa u dhaqaaleyn jiray hooyadayna wuxuu siin jiray biil oo kaliya wax biil ka badan muusan siin jirin marka annaga waxaan deganeen guri kira ah isagoo sidaas dhaqaalo u leh waxaan deganeen guri kira ah oo ah qol iyo saalo iyo musqushiisa iyo jikadiisa annaga waxaan seexan jirnay saaladaas yacni qolka barandadiisa maana lahayn gogol ama wax firaash ah dhaqaale saas u buuran oo hooyo uu siinayna ma lahan ilaa qutulyoonka maalintaas dabka lagu shubanayo aanan ahayn halkaas ayuuna ka bilowday khilaaf u dhaxeeyo aabahay iyo hooyaday intaas inoo joogto qaybta koowaad ee qisada Rimaa intaan ka gaarayno qaybta labaad ee qisada ku horumari channelka subscribe-ta oo ka qayb qaado horumarkiisa like-ta waxay noo gaarsiinaysaa videoga meel fog oo like inoo saar comment-ga nagula wadaag fikirkaada qurux badan leh aad iyo aad ayaad u mahadsantiin